dowladda Jabuuti ayaa ku eedeysay dowladda Soomaaliland inay ka gaabisay inay wada shaqayn kala samayso baadhista kiiska qaraxii Jabuuti ka dhacay sanadkii 2014. warbixin ay soo saartay dowladda Mareykanka oo lagaga hadlay la dagaalanka argagixisada waxaa lagu sheegay in la soo gabagabeeyay iskaashi caalami ah hordhac ah oo la xidhiidhay baadhista qaraxii Jabuuti ka dhacay sanadii 2014. waxaana sida warbixinta ka muuqata ay mas'uuliyiinta Jabuuti sheegeen in aanu garsoorka Soomaaliland la sameeynin iskaashi buuxa, iskaashi la'aantaasina ay keentay inay dib u rido kiiskan baadhitaankiisa. waxaana qoraal kooban lagu yidhi waxa la soo gabagabeeyay sanadkii 2018 iskaashi caalami ah hordhac ah oo ku saabsan kiiska qaraxii 2014 ka dhacay dalka Jabuuti. qoraalkan ayaa Jabuuti waxa ay ku tiri dowladda Jabuuti waxa ay u qorshaysnayd inay bilowdo dacwad ciqaabeedka 2019 sida ay sheegeen saraakiisha Jabuuti ka tirsan iskaashi la'aanta garsoorka dariskeena Somaliland ayaa ka qayb qaatay dibudhaca baadhistaasi. saas ayaa lagu yidhi warbixinta Mareykanka uu soo saaray oo la daabacay 1 Noofembar 2019 lagumana darin aragtida iyo jawaab celinta dhinaca dowladda Soomaaliland ee eedani loo jeediyay. madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta shir isugu yeedhay golihiisa wasiirada waxaanu faray inay madaxtooyada isugu yimaadaan 8 subaxnimo. ma jiro wax war ah oo ku saabsan yeedhmadan golaha wasiirada, laakiin dadka qaar ayaa saadaalinaya in madaxweyne Biixi oo u dhammaaday sanadkii labaad ee madaxweyneedkiisu ay suurtagal u tahay inuu la xisaabtamo golihiisa wasiirada oo wasiir kasta uu weydiiyo wixii uu qabsoomay 2 sannadood, halka ay dad kalena tilmaamayaan in madaxweynuhu wasiirada ugu yeedhay arrimaha ku waajahan xaaladda uu dalku haatan marayo. si kastaba ahaatee kulankan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay dhammaad yihiin 2 sannadood ee u horreeyay ee madaxweyneedka madaxweyne Biixi 5 sannadood ahaa. waxaana madaxweyne Biixi iyo golihiisa wasiiradaba hor yaalla inay ummadda u soo bandhigaan mashaariicda horumarineed ay qabteen 2 sannadood. daawadayaal intaasi waxaa ku guud ahaanba warkaanu maanta idiin haynay. waa anigoo Maxamed Taajir iyo bahda Geeska Afrika oo idinku sii dhaafaysa sidaas iyo nabadgelyo.